السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار شرفت لو مركلة iyo muuqaal cusub bartaad naga daawanaysaan oo alla ka hamidiyo baro waxaa inii soo jeedinaya anigoo ah walaashiin iyo xaajigeyga aad iyo aad baa u mahadsantihiin asxaabta sharafta leh aad iyo aad waanu caafimaad qabnaa waxaan idin rajaynaynaa caafimaad qab qisadii waa ina kala soo daahanay asxaabey waa arki doontiin insha allah sabareys waaye hadda ha guriga aan deganahay inaan ka gurnaa rabnaa marka insha allah magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga marka asxaabay sidaas aan kaga daano hawlo waa iska ogtiin reer guuraayo isla magaaladeena dhexdiisa guuray reenagi qalbigu waa uu ka raacay sigsigdada qisada rabaan yaan dheerayna marka asxaabay waa in ka raali waa gelinaa dheertahay tani ma dheeraan ma baahan may hadalkeena diidiya boqolkiiba boqol waan jecelnaa familkeena ka midtiin haye macaan waxa qisada noo maraysa qisada ana moogaanina qisada soo socota aad iyo aad qisada waxa weeye waxay noo maraysay islaantii oo barnaamijkii loo sheegay gabadhan inuu sheekhu dhalay iyo sheekhii laftigiisii oo la yiri islaamtu tiri si aan ugu qanco ee keena intaa kadib maamadii waa ka soo tagtay wadaadkii ayaa la doonay wadaadkii waa loo keenay islaantii waa isu soo hor fariisteen wadaadkii iyo maama fiican indhaha qac la isku siiyey sheekadii waa la istiraashay marka barnaamijku waxaa bilowday maamadii wiilka dhashay waxayna u qandicisay oo si fiican ugu sheegtay qaabkii iyo wixii iyada iyo sheekadii dhex martay iyada iyo islaanta maama fiicana intaa kadib waxay tiri maamadu waxay rabtaa afkaaga sheekh hebelow inaa barnaamijkan uga cadaysid wadaadkii wuxuu yiri waa run anigu nin dhalinyaro ah baan ahaa nin dee markaas iska ciyaala baan ahaa wax badanna aan kala garanayn diin hadday tahay iyo hadday waxbarasho iyo aqoon kale tahay midnaba nin 20 jirna intuu geed ka boodo uu tala ka boodaa dee dhalinyaranimo wax la sameeyey bay ahayd sidii runta ahayd oo xaaladdu u dhacday oo gabadha wuxuu ku sameeyay iyo waxa ay umu sheegin inuu meher ku dhaltay in kala maamada waxaas umu sheegin laakiin wuxuu u sheegay in uu dhalinyaro ahaa nin jaamacad loo rabo ahaa nin mustaqbal iyo higsi dheer loo rabo oo aabihii u rabo uu ahaa nidaamkan uu dhacay macnaha wuxuu maamada u sheegay inuu nin noocaas loo rabo uu ahaa kadibna uu barnaamij galay nooc kastaba ha ahaadee barnaamijkii in ilmahaas yimi ilmihiina in banaanka lasoo dhigay naagtii dhashay inay halkaas soo dhigtay sababtoo ah haddii uu maamada hadda u sheego waxyaabo badan buu ka baqay islaantu waa maamo waayeela waana dumar waxay dee islaantaas waxa u timaada xataa gabadha hooyadeed oo ruma baa u timaada waxyaabo badan inay qaraxsiso oo wixii sheegto buu ka baqay marka wuxuu yiri dhalinyaranimo ay qaaday sheekaduna saasay ahayd maama saasay u dhacday anigana wax kale iyo xal kale oo aan sameeyo ma garanayn sidaa darteed anigu bannaan baan kasoo istaagay buu yiri aniga markaan bannaan kasoo istaagay iyadiina go-aan waxay kusoo gaartay inay ilmahaas tuurto sidii ay iyadu sheegaysay oo anigu markii been baanba uga malaynayay waxaan moodayay inay iska haysanayso laakiin waxa isxog ogaa oo aada isu xog ogaa iyada iyo gabadhan walaashay ah baa aada isu xog ogaa buu yiri oo maaragtay saaxiibo isku dhow ahaa sidaa darteed gabadhii go-aankaasay gaartay aniguna buu yiri dan kama yeelan gabadhii yartahayd waa lasoo tuuray laakiin nasiib wanaag walaashay way ogeyd meesha la geeyey anigina wuxuu yiri waxbarashadeedii baan iska aaday waxbarashadeedii maadigaad markaan dhammaystay diin baan haddana u leexday diin baan bartay muddo kadib ayaan dalka kusoo laabtay ganacsigayga waxaygii
markaa gabadhan waata kaa warqabtay adiga oo gabadha kaala wareegtay oo waxbarashadeeda iyo dee sideeda iyo systemkeeda iyo nidaamyadeeda iyo wax kasta iyo adiga caawintaada waa nagii anagu markaa isagu wuxuu isku darayaa gabadhu isku darayaa wuxuu iska dhigayaa sidii nin maaragtay la ogaa buu iska dhigayaa sababtoo ah xogta dhabta ah islaanta in faraha lagaga bixiyo wax kastaa ka imaan kara lama ogeyn iyagu hadafkooda iyo ulajeedkooda wuxuu ahaa in marka hore habarta loo sheego odaga kadibna maamada gadaal laga fahansiiyo oo mar dambe loo sheego hadafkii ulajeedka ay kala hayeen saasay ahayd maamadu marka ninkani waa nin shiikha waa nimay aada u aaminsan tahay waa nimay garanayso oo taqaan markaa maamadu wixii oo dhan iyo khadkii oo dhan iyo wixii oo dhan way fahantay wayna ka aamintay sababtoo ah ninkan waxay aaminsan tahay inuusan been sheegin caddaymo badana way haysataay dee nin intaasoo xoola ah ku kharash garaynaya dad oo sakan ku bixiyey marlabaadkii guryaha u dhisaya dee muxuu ku bixiyey waxyaabahaasoo dhan bay islaantu dareensan tahay way ka aamintay marka wuxuu yiri gabadhan anigaa dhalay wuu caddeeyey gabadhani waa gabadhaydii buu yidhi anigaa dhalay markaas islaanta kumuu oran sistamka noocaasaan ku dhalay ee waxba uma faahfaahin laakiin duruuf baa ay haysay dhallinyaraan ahaa sheeko noocaasu uga baxay waa u guud maray intaa kadib haye boqorada barakaysan intaa kadib maamadii odaygii sidii bay ku qanacday maamadii wax kastoo jiran oo u sheegay maamadii marka sidii buu wadaadka uga tegay gabadha yarta ahayd ma oga weli hooyadeed dhabta ahaa weli looma sheegin waxaa dhacday marka maamadii in ay xanuunsatay oo maamadii aada tabcaan u noqotay maamadii gabadha korsatay waaye maamadii marka in dhakhtar la geeyey maamadii ay kooma gashay koomadii ay kasoo baxday maamadii aada ilay u xanuunsatay dhakhtarkii marka markasta waxaa ku haysay gabadha yartaa marmar iluu xaajiga u yimaado oo saacado ka haya mahane inta badan dee gabadhaa la seexanaysay iyo gabadha habaryarteed maamada oo isbitaalka ku hayay maamadii waxay tiri monday waxaan rabaa galabtay inaan kula hadlo oo ani adigu aan sheekaysano haddii ilaahay idmo hadda xoogaa waa roonahay waan hadli karaa laakiin god qarkiis bay istaagtay maamadu waxay tiri maamo hooyoy macaanay waa yeel wadkiisa waa yaqaanaa aniga maantay waxaan aaminsanahay in aan xag ilaahay aan u socdo mana doonayo waxa caloosha iigu jira ilaa na dhinto haddii aan la dhinto ilaahay wuuba igu cadaabayaaba naag weyno intaa la ego ilmahaagi maasha allah baan arkayaayo aan daawada ah 2 cunug bay marka gabadha u leedahay 2 wiil bay haysataa wiil hore agoodeen wiil labaad bay dhashay marka waxay tiri hooy macaan maxay tahay waxa jira iyo hawsha jirta waxay tiri hooy macaan waa wax aan kaa qarinayay muddo dhowr iyo 20 sano hooy maxay tahay masiibada jirta iyo dhibaatadaas aad iga qarinayso hooy macaan ilmahaagii baan hooy ilmahaagii baan ahay waad jeceshahay ana dunidan kuugu jeclahay marka hooy ma aaminsaneen hooyadaaba intaas oo sanooyin wax kaa qarinaysay bal hooyo waxa aad iga qarinaysay ii sheeg waxay tiri hooy macaan ma rabo in aad dhaawac ilo ku gaaro sababta ay tahay waxaan hadda kuugu sheegayaa adoon ogeyn haddii aan dhinto taasaan ka baqayaa masiibo ilay tahay macnaha haddii waxaa imaan karta maamadu iyadoon u sheegin oo oran ninkaanaa ku dhalay haddii ay maamadu dhimato oo tii allaba u timaado wax inay gabadhaani shakido oo ka shakido xoolahan iyo hantidan markaan gabadhu ilaa markaan waxaa weye gabadhu xoolay haysataa gurigan weyn bay leedahay xoolo kaleetay leedahay waxay u haystaa oo dahabkii baan ka wada xoolaha kale in la damcay oo xoolaheeda la damcay oo maamadan iyo walaalkeed shiikhu ay isu afgashadeen iyo wax badan bay fahmi kartaa marka sidaa daraaddeed inay hadda usii sharaxdo bay doonaysaa aad iyo aad marka waxay tiri hooyo macaanto adiga oo beriye dhalan baan hooyo macaan anigu ku halay waxaana ku dhalay
wadaadka maantay kula jooga oo 24 saac aan gurigeena ka bixin oo hantideena maantay quruxda badan noo dhisay waliba maanta anigu malihii adaa iskale hantida quruxda badan wadaadka dhisay ma nin islaameed iyo nin aan cad kuugu oolin baa hooyo xoolahaas kugu kharash gareyn lahaa aniga hooyo macaan waan ku korsaday gabadhaydii baa tahay dhib la-aan baan ku dhalay laakiin hooyo anigu kuma dhalin aabbahaana waa kan hooyadaana anigu ma aqaan ilay dhimatay ilay nooshahay war kama hayo marka hooyo macaan sida uu ogo gabadha yar tahayd caadi bay u waalatay dee dharka ma dhigan laakiin waxaa ku dhacay nafsiyan waxaa soo isla saaray hadal waxaa soo food saaray inay xoogaa khafiifto adiga gabadha yar tahayd way oyday wax badan bay oyday gabadha yar tahayd marka waxaa yimid gabadha yartaa xaajigeedii iyo maamadii wiilka dhashay habreerteed wey gabadha yar tahayd oo aada u ooyeysa aan qaylinayn laakiin dee caloosha oohina waa oohin waa aada iska ooyeysid oohina haddaa iscalinaysid ma iscalin kartid ilmadoo kaa daadanaysa arkaysa adoo oon macnaha islahayn oy taasaa gabadha yartayd ku dhacday marka maamadii iyo wiilkii waxay dhaheen hooyo maxaa ku dhacay gabadhii nama hooya kasoo dartay ma dhakhtarkiiba ku yimid oo ku yiri hooyo waa u dhammaatay oo way dhimanaysaa maxaa jira dhimashada ilaahay baa og laakiin macnaha dhakhtarka muxuu kuu sheegay gabadha yartayd hadal wuu kasoo bixi waayo waxay tiri hooyo macaan wad gabadha yartaa gurigiige sidaas baan ku leeyahay gurigiige adiga maamadii kalaa ku hartay maamadii waxaa lasoo waday gabadhii gurigeedaa la keenay maamadiiba u sheegaysaa waxay leedahay aniga haddii aan dhinto oo ilmaha yarka aan ogeysin waaridkiis beri ka maalin haddii uu waaridkeed uu sheegto dhaho anaa ku dhalay dee ma aaminayso weligeyna dee igamana dareemin ilaana dhalin igamana dareemin wax xun dee ilmo hooyo macaan ay dhashay siday u jeceshahay si kasii fiican baa u jeclaa marka sidaa darteed arrintiibaa u sheegay wayna muraarada lacda hadal dambaba ima weydiin bes maamadii adiga 3 beri 4 beri bay dhakhtarka kusii jirtay dhakhtarkii wuu soo noqday wuxuu ku yiri maamadan dawadeeda u qaada xanuunka haya xanuun loo dhintana wuu hayaa in loo noolaadana oo ilaahay caafimaad siiyana way dhici kartaa wadaana siiyo waana qaadan kartiin gurigiina waa geysan kartaan marka maamadii waa la soo saaray gurigeedii baa la keenay gurigii baa lagu hayay maamadii marka xoogaa way kasoo dartay dawadii waa la siiyey laakiin xoogaa waxay bilowday inay miyir doorsanto oo ay suurto macnaha se u joogto koomay gelaysaa gabadha yar tahaydna khafiif baa ku jira oo inta badan way ooyeysaaba adugu wuu maqnaa marka wadaadkii baa yimid safar ku maqnaa gabadha aabaheed waaye wadaadka waa shiiqii safar buu jiray markaa gabadhii gurigii bay joogtay maamadii xoogaa way kasoo dartay maamadu macnaha istabaysay xoogaa liidashadeedii baa soo badatay gabadhiina iyaduna murugaa ku jirtay oo aada bay u murugooneysay xoogaa maaragtay stress baa ku dhashay xoogaa maaragtay aada bay u khalkhashay odaygii baa yimi odaygii hadduu yimi gabadhiisii buu ogaaday xaaladday ku sugan tahay sheekada waa looga dhacay wiilkii iyo maamadii iyo wixii oo dhan baa u sheegay markay u sheegeen qur-aan buu ku bilaabay marka iyadii iyo maamadii labadiiba qur-aan buu ku bilaabay wadaaduu keenay qur-aan buu ku akhriyey gabadhiisi waa soo roonaatay marka gabadhii oo soo roonaatay ayaa maamadii dhimatay gabadhii marka maamadii markay dhimatay waxa u bilaabatay murugo kale oo aada u sii daran ma garanaysaa sababta oo qofkii ay dunida ka fiirsanaysay waa ka dhintay oo maamadii ay ku xisaabtamaysay way dhimatay waxyaabo badanna way isugu biireen hadaladii la sheegi jiray waxalbaatay derbi baa lagaa helay iyo maamadii oo u caddaysay oo tiri wadaadkaa ku dhalay iyo waxaasaa waxay ku dhaliyeen tashuush ku dhaliyay gabadha wixii baa haya marka dhimatay maamadii hadday dhimatay allah u naxariisto maama fiican waa dhimatay maamadii la-aas ilaa adigu muddo
asbuuca markii la joogay oo maamadii ay sii mootanayd alla bari baa la yidhi baa loo samaynayaa tacsidii adigu maalmihii ugu dambeysay alla barigii ugu dambeeyay iyadoo la dhigayo jig cirka waxaa ka soo dhacay walaalaheed oo markaas awalba gaadayay maamadaani markay dhimato hadafka iyo ulajeedka ugu weynay leeyihiinna ay tahay guryahan waa yimaadeen way ka warqabaan gabadhii in la guursaday sheekada way la socdaan inay caruur leedahay in ay xaafada degan tahay waxaasoo dhan way ka warqabaan kadib hadday yimaadeen wiilkii baan rabnaa gabadhii iyadii laftigeedii baa farta ugu fiiqday abti samriga imaan ilaahay naga siiyo hooyo waka qaab abtinimo ah bay markaa ku qaabileen waa nimankii reer miyiga ahaa marka waagii hore waxay u yimi labay ahaayeen laakiin hadda waa 3 waxaa la yidhi hebel waa kan ciyaalkii madaxa usla salaaxeen ninkii bay gooni ula hadleen waxay dhaheen haddee samiri imaan maamadii hana laga siiyo allaha naga siiyo kulligeenba haddii annaga walaashayay ahayd inagu hadda ka hor ismaynu arag hadda ilaa markaasaa gabadh bartay ma ogtahay 3dan oday mid ka midihii dhowr jeeroo horuu yimi oo way taqaanaa labadanna waa labadii qaylqaylinaysay 3daba way taqaanaa macnaha marka iyadaa bartay wiilka hadday bartay wiilkii gooni bay ula baxeen waxay dhaheen samiri imaan ilaahay naga siiyo sidaa lagu sheegay dee maamada baan la dhalanay annagu haddee waxa weeye waxaanu nahay dadkii guryaha lahaa ma fahamtay waxaan rabnaa marka bal inaad iskaaga qaabilsiisid nimanka guryahan kirada u degan ma naqaan ilaa guryahan isagaaba deganoo way ogyihiin laakiin kuwan kirada ah bay iyagu ku socdaan waxay yidhahdeen guryahan ciddii deganeyd maaragta baanu u baahannahay inaad iskaaga tustid oo iskaaga qaabilsiisid oo bal si aanu macaamilka ilaa maamadaa la macaamili jirtay si aan ula macaamilno okay buu marka wuxuu yidhi saasaa noo ballana wiilkii wuxuu yidhi ma xuma bal qolkan iska dega hadda ma garanaysaay danihiina magaalada iyo daga soo qabsada qolkan iska dega ana dadkan dad baa isku xiray oo dadka isku xiray iyo waxaan iyo baan insha allahu isla doonaya macnaha wuxuu rabaa inuu abtigii meesha keeno buu rabaa iyo hooyadii waayahay bay dhaheen iyagu waaba u joogeenba habeenkii waa seexdeen subaxnimadii wiilkii waa baxay abtigiisii buu raadsaday abtigii buu u tegey abtoo nimankii baa yimi buu yidhi habarta la dhashay hooyo fiican nimankii la dhashay baa yimi af cad bayna ugu yidhaahdaan waxaan u baahannahay nimankii nimanka guryahan kiraystay inaan wareejisido iskaayatid baan rabnaa maaragtay rag baan nahay dhaqan leh inaan xaaskaaga maaragtay ku dhaafno macquul maaha gabadhan waa gabadhan abti unahay laakiin inaan ku dhaafno gacan dhaafno ma doonayno dhaqanka soomaalida baa noocaasa saasay abti u dhaheen abtigii wuxuu yidhi okay horuu ka soo raacay gurigii buu yimi odayaashii oon joogin buu yimi wuu sugay way yimaadeen markay yimaadeen buu la kulmay wuxuu yidhi niman yahow wixii aa u socoteen waxaa ii sheegay wiilka marka bal ilaa iyo insha allahu tacaala nimankii hadda mas-uulka ka ahaa waa maqan yihiin adugu waa farsamaynayaa ma ogtahay 2 maalmood naga warsuga gurigii buu galay gabadhii marka oo maaragtay waxay la murugaysan tahayna waa isaga laftigiisa waxay ka murugoonaysaa maamadii oo dhimatay iyo odaygan qur-aanka ku akhriyaya oo ay ilaa markaa ka cabsanayso waxa kale oo dhinaca kale jira odayaashiina waa yimaadeen marka gabadha waxa haya xoogaa murugo kaleeta oo odaygii waa kan odaygana iyadoo si uga didsan oday dhimatay maamadii nimankana waa kuwan yimi gurigu u galay wiilkii iyo gabadhii aniga waa la ii kaa sheegay aniga aabbahaa ah dunidana anaa kuu nool walwal
wax walwala ha gelin buu yidhi insha allahu tacaala niyadaadana khayru sheeg maama fiican waa dhimatay sidii laguu sheegay weeye aniga aabbaha ah iyadana samir iyo iimaan allah inaga siiyo nimankan arrintooda baynu gelaynaa sabraloogadiisii buu qaatay magacyada ku qoran buu wuxuu raadinayaa nimankani nimanka ay yihiin dhowr nin baa ku qornaa dhowrkii nin 2 nin buu gartay laba nin oo mas-uul ah oo la yaqaan oo waayeel ah weeye aadna waayeel u ah rag odayaal ah oo maaragtay muctarif ah magaalada ka ah bay noqdeen 2 nin buu u tegey wuxuu yidhi niman yahow arrin baa jirta adigu arrintiiba uga dhacay wuxuu yidhi waxaa laysku haystaa dhul guryo nooca iyo noocaasaa laysku haystaa waxaadna ku qoran tihiin markhaantiyada nin dhulku muxuu yahay oo sheekadii buu u akhriyey hebel soo ma tihid hebel soo ma tihid haa dhulka noocaasa muddada noocaasa taariikhda ilaa waxay ku qoran tahay mulkiyadda taariikhda noocaasa islaan noocaasa oo saasa haa heblaaye hebel waaba u abtirinayaan ha gabadheeda yarta ay ku wareejinaysay nacam annaga markhaanti ka ahayn weliba waxaan xusuustaa ninkii hebel ahaa qaadigii allahu raxmadee markii uu samaynayey macnaha uu ku qorayay xoogaa sibuu u diidiiday oo inuu diidiidayay aragti maamadu waxay hadal ugu soo sintay war haddii maanta anigu soo hantidayda meli soo ma caafimaad qabo miyaan waali iyo midna miirkaygu soo ma fiyoobahaa soo xor uma ahi inaan adiga kugu qoro hadalkaasi u adeegsatay haa buu yidhi sidaa daraaddeed anigoo fiyow baan rabaa gabadhayda inaan ku qortid tabtaasay tiri markhaanti ilaahay hadalkaasi hebel uma xusuusataa haa waa xusuustaa nimankiibuu kasoo xaqiijiyey wuxuu yidhi maxkamaddaan imaan doonaa haddii ilaahay idmo idinkana 2 maalmo adigu waxa weeye maxkamaddaan berri tegaynaa haddii ilaahay idmo nimankii dhulka niman walaalaheeda oo islaanta walaalaheeda baa gabadhii dhulka ku haysta hadda maxkamaddaan isku kengeenayna ninkan waa nin muctarif ahoo la yaqaano shiikha ma ogtahay caalima waa yahay shiikh bay dhaheen xoogaa gabadha marka welwelkii iyo wixii iyo waa ka ba'ay laakiin weli ma soo kaban oo si fiican uma fadhido gabadhii dee waxaa garab u ah marka habaryarteed iyo ninkeedii iyo hooyadeedii runta ahayd iyo oo dee inta u timi u tacsiyeynaysa oo waxay leedahay samir iyo iimaan ilaahay ha kaa siiyo hooyada ma garanaysaa qof walba waa dhimanayaa maalin buu dhimanayaa annaga hooyada iyo annagoo jecel baa ilaahay lahaa la tegay waa kan waxaasay ku daldalsaa waa hooyadeed intaan hooye macaan aan kuu noolnahay aniga iyo habaryar iyo abtina walwal ma arki doontid waad ogtahay waan maqlay abti siduu guryaha inuu kugu dhisay lacagtii sakada ahayd suu abti kuu garab qabtay waa ogahay anna hooye weligaana garabkaagaan ahaa haddana garabkaaga ha welwelin hooyo booskii hooyo fiican shalay hadday habaryar kugu jirta maanta anaa kugu jiraya bal hooyo balan baa ilaahay ka qaada ilaada murugoon murugta iska daa maamadu marka dhowr habeen bay gabadha la seexatayo ay u wehel yeelaysaayo ay maamadii ilowsiinaysaa walwalkay rabaan inay ka bi'iyaan haya kasii socon iyo murugada bay ka bi'inayaan almuhim nimankii odayaasha ahaa waa joogaan subaxdii baa gaari meesha laga soo istaajiyey albaabka wiilka baabuurkiisiina waxaa lagu qaaday maamooyinkii iyo gabadhii odayaashiina waxaa qaaday isagii waa la kaxiyey odayaashu waxay u qabaan in loo wado nimankii gurigan kusoo wareejin lahaa already waa isa siiyeen gurigan moogtahay muran iyo hadalba iyo gorgortanba cidna kagama jiraan gurigooda iyagaa leh maxkamaddii baa la tegey maxkamaddii baa albaabka laga dhigay nimankan waa niman reer baadiye ah maxkamaddii haddii la tegey
ninkaani wuxuu diyaarsaday cid maaragtay loo yaraadee oo dacwada bilowda oo nidaamka sharaxda. Nimankii baa lasoo fariisiiyey. xog badanba ma hayaan nimanku, waa niman reer baadiye ah. bismillahi raxmaan raxiim. meeshii baa dacwadii la bilaabay. dharararag ninkii xeer ilaaliyaha waa akhriyey guryaha noocaasa nooca iyo noocaasa mulkiyadoodu saa tahay dhadhadhadha dhinaca uu ka xigo hebel intaa dhinaca ka xigo xagga saa dhulka oo maaragtay mulkiyadeeda ay leedahay gabadha la yiraahdo heblaaye hebel oo ay ku haystaan nimanka nooca iyo noocaasa. nimankii magacyadoodii buu sheegay marka. nimankii waxay dhaheen waxaana fahansiiya nimayo, ma dhulkii walaashay ka dhimatay baa anaga gabadhan yarta ah nagu haysataa? war waa la fahansiiyey oo waa loo sheegay oo meeshii aad joogtaan waa maxkamad baa la yidhi, waana laydinkala xukuminayaa. shareeco islaam baana laydinku xukuminayaa. wixii aad kala qaadaan, wixii aad kala yeelataan adiga iyo waa la fahansiiyey. nidaamka markii la bilaabayay baa sheekada la fahansiiyey, kadibna waa la akhriyey. kadibna dee wixii in lagu dhawaaqo iyo xukun iyo markhaantiyo iyo bay leedahay iyo waxbaa la sheegay. waxay dhaheen waxaan aad daldalaysaan iyo waxaan aad sheegaysaan anagu kuma qanacno. dhulkii walaashaya oo aan u jeedno oo walaashaya leedahayna cid gorgortan kala geli mayno. ha tolkayaan soo kaxaysanaa, dadkaana tolkooda keensadaan. aada iyo aad waa u rag badsanaynaa bay dhaheen. adigu waa lagu soo kala dareeray ilaa iyo intee. adigu ninkii wuxuu yidhi anaa u geynaya tolka, ciday doonaan ha soo kaxaysteen. maxkamaddii waa la ballamiyey. waxaa la yidhi maanta sabti weeye, arbacada imaada oo kale. nimankii odaygii baa qaaday. waxay dhaheen kuna raaci mayno, agtaadana mari mayno, khaa'im baaba tahayba, shiikhna ma tihid. adigu dadkoodii bay raadsadeen, dadkoodii bay soo heleen. ninkii iyo niman kaleeto oo dee isla ganacsata ay isla yihiin, laakiin nimankan faamilkooda go-aan waxa lagu gaaray in maxkamaddii la yimaado. maalinkii la ballamay baa maxkamaddii la yimi. maxkamaddii markii la yimi, maxkamaddii waxay xukuntay dee markhaantiyo iyo wixiiba waa haystaa. bahashan markhaantiyada ku qoran waaba nool yihiinba, way joogaan basoma wayba joogaan. labaad joogtaa. laba nin oo niman waaweyn ah oo magaalada macquulka ragga ugu muctarifsan ka mid a baa meeshii taagana. labadii nin baa meeshii markhaantigii furay. sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa dhacday bay dhaheen. markhaantigii bay caddeeyeen. maxkamaddii waxay ku dhawaaqday in ay nimankan aysan shaqo ku lahayn guriga, gabadhaani gurigeeda ay leedahay. maalinta caynka ay caynkaasa lagu saxiixay. wakaa hooyadeedna ku saxiixday. waxay la soo taagan yihiin ma dhalin, derbi bay ka heshay. war adigu derbi ha ka hesha maahaane cirka ha ka keenta hadday rabto. macnaha ma islaantu macnaha ma ku saxiixday mise kuma saxiixin. xoogaa hooyadeed sheekadan gabadha derbi baa laga helay iyo waxa oo dhan new bay ku yihiin face. waxay u qabtay islaantaani waxay dhashay ma ogtahay. weji cusub baa islaantaana u bilowday, laakiin maba fahansanaa. balse derbi baa laga helay, dhegteeda waa ku dhacday, mayse garan. muhiim odaygiibaa wuxuu yidhi markii maxkamadda laga soo baxay buu wuxuu is yidhi gabadha il baa iyada iyo ilmaheeda ku dhacaysa. sidaa daraaddeed go-aan buu qaatay, qaraar buu gaaray. nimankii buu la hadlay. raggiibu gooni ula baxay isagoo ka baqaaya gabadhiisii ilmaheeda in mushkilada ku timaado. il iyo wax kasta waa jiraan. nimankii jifida u ahaa nimanka buu la hadlay. wuxuu yidhi niman yahow arrin kalaan idiin haya. nimankan waa arkaa gabadhan yarta ah xoolaheeda iyadaa leh, laakiin aniga maadaama aan anigu ka mid ahay dadkii oo aan dhexdhexaadiye u ahaa oo aan meesha isugu keenay dadka, hal arrin baan samaynayaa. gaari booyada oo ay biyaha ku dhaansadaan. marka odaga kalmada uu adeegsanay gabadhaydu leeyahay. ha gaari booyad ah baan waxaan siinayaa nimankan. lacag jicsinana oo ay ku tagaana waa siinayaa. baabuurkooda iyagoo wata, iyagu saddexdoodu waa reer baadiye soo maha, biyaha ku dhaansadeen.
lacagna waa siinaya adee tol baa leeyahay macnaha ma rabno annagoo isku cuqdadaysan oo isku dhibaataysan ilaa tagtaan inaad tagtaan in aad tagtaan ma rabo idinkoo faraxsan ay isjecelnahay gurigiini sidii u ahaado aada u timaadaan usoo hooyataan oo booskii abaayo way baxda laakiin annagaa ku jirna in sidaas aan noqonaa rabnaa oo xiriirkeena usa go-in aada iyo aada markaa sidaa daraaddeed lacagna waa siinaya lacag $1,000 buu siiyey booyadiina waa adigu waa ka jeediyey iyagoo raalli iyo nus ah oo $1,000 wata gaarina wata weyn oo booyada bay tageen baadiyahoodii bay aadeen gabadhii sidii bay ku nabad gashay sheekadii marka odayaasha sidaasay kaga joogsatay waxaa soo haray gabadhan aabbaheed iyo iyadu inay wada hadlaan oo ay tiraahdo waxaan u baahanahay hooyaday baa meesha ku jirta waxa ay kuu sahlaysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaano uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii anigaa u riyaaqay oo uga raystay dhib odaygii dib iskugu noqday wuxuu ka baqayaa hadduu u sheegay gabadha yartaa inay reerkii ka dhex dhacdo ilaa maamadii intaas oo sanaa laga qarinaya iyadana in guriga uu dumo ay gabadha yar tahay meeshii problem uu ka bilowdo baa la diidaya si habiya sida tanba lagu dhameeyay dhib yaraanta baa la rabaa in lagu dhameeyo tan kale gabadhu isma oga waxay ku dhalatay inay meher ku dhalatay inay meher ku dhalatay waxaas isma oga aad iyo aad xanuun badana ilaahay oo gabdhahana Soomaaliyeed u gargaar rabiyo marka odagii wuxuu la hadlay macnaha odagii wuxuu la hadlay habartii iyo wiilkii wuxuu yiri idinka culays idinka aan in haysan baa aniga haysta gabadh yar tahay nafti bay keentay 4 saac waxay weydiinaysaa hooyadeed ayadii haddaan u sheegnana waxaan ka baqaynaa in wax badan ay xumaadaan marka walaalay si degan oo dhib yar oo aan dhib lahayn baa waxaan rabaa ilaa abaayo u yeertid oo si tartiiba aad arrintan uga dhaadhicisid aniga waa ogtahay walaashay maalintii aniga ayada dhibaatadaas ay dhacday oo shaydaanku igu qaaday baa walaashay iskugu kaay dambeysay in ay iyadoo xijaabano meelaha maraysa iyadoo meelaha maraysa in aan arka ma aqaan laakiin aniga iyada inta iska hor nimid salaam calaykum ismaana dhixin sonkorna waa qabtaa maantana wax aan ku dhaho maxay ahayd gabadhaadi halkaas joogtaa ma garanayo walaashay gabadha macnaha walaasheed waxay tiri marka arintaas waa sax adiga hadda kuma haboonid ilaa u tagtid ana abaayo ka dhaadhicinayo wayna xanuunsantaa waa ogtahay sonkor xun bay qabtaa sonkorta dhacdayna qabtaa marka ana si tartiibo oo degan uga dhaadhicin doona okay habaryarteed waa dhaqaaqday waxay u tagtay walaasheed waa gabadhan hooyadeeda loo tagaya gurigeedii bay ugu tagtay gurigii markay ugu tagtay meeshii bay fariisteen deecabaar bay sheekaysteen waxay tiri walaalay waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin aada filanin oo adiga xaggaaga aadan ka filinayn oo aad xaggaaga adiga ay ka dhimatay marka walaalay ma u malaynaysaa ilmihii adigu aad dhashay oo jiirkaaga ahaa anigana jiirkayga ahaa oo aad ii dhiibtay gabadh yartay in aan meel cidlaa inta ku tuuray oo qashin ku dhex tuuray aan uga tegay ma iga filanaysa maxaa dhacay habartii waabaa ku bariyay sootaa itir waa tuuray sootaad itir waan tuuray gabadhii qashin baan ku kor tuuray dee mana ka warhaya dhimashii noolal hadda maxaad soo aragtay oo cusub waxay tiri walaalay macanay dhowrka iyo 20 sano oo gabadhaas ay maqan tahay anigu waa la socday habeenna ma moogeen sida ilmahayga aan uga warhayay oo aan u korinay waliba wayna nooshahay maanta gabadhaadii dadna waad ugu badisaa waad ugu badisaa waxaan kaa codsanayaa in aad isdejisid allahna aad u noqotid shaydaanka iska naartid oo isdejisid waxay ka baqaysaa in sonkor ku kacdo aad iyo aad gabadhaadu waa gabadhii adiga 6 sano ku shaqeynaysay aniguna 8 sano aan hayay oo aan korinayay
waa heblaayo waad garanaysaa waa heblaayo habartii meeshiiba hadal ugu dambeysay way dhacday waa digtay waa qaracni orugo waana arrin aad u xanuun badan haye macaano kala orod iyo waxa meesha ka dhacay kulushtii waa la qaaday maamadii dhakhtarkaa la geeyey maamadii falembooyin baa lagu rakibay maamadii hihi iyo haa waa laga la-aya caruurtii meeshii bay baroor la fadhida ilay dhimatay bayba u qabaanba wiilkii baa maqlay gabadha qabay ee habaryarta maamadan u ahayd wiilkii wuu tegay gabadhii buu usoo sheegay wuxuu yidhi habaryar kamana dhicin kumana jirto gabadhii haf iyo balow bayba soo tiri isma oga waa jiirkeedii waa hooyadeed meel baa go-day way soo haaday maamadii bay u timid dadkii oo dhan oo wada taagan ma oga ilay hooyadeed tahay isma oga waxay iyadu laakiin ay xeerinaysaa maamadii soo korisay oo 6 sano ay la soo joogtay oo jacayl rabbaaniya ugu jira macnaha aad iyo aad maamaduna mar walba ilmaheeda way ka jecleed horaan sheekooyinkii horaan uga soo sheekayn marka way ku dhegtay way ku kor oyday habaryartii baa ka fujisay waa laga waday adiga maamadii maasha allah saacada kadib way soo roonaatay indhahay soo kala qaaday laakiin hadal badan ma hadli karto indhaha markay soo kala qaaday bay waxay hadal ka bilowday heblaayo meeday heblaayo meeday gabadhaydii bay marka raacinaysaa heblaayo gabadhaydii meeday waa isfiiriyeen maxay hooyo ku dhacay maxay ka wadaa hooyo iyagu laakiin markaa waxay u qabaan heblaayo meeday gabadhaydii markay leedahay waxay u qabaan inay maadaama ay dee u shaqayn jirtay oo awalna dee gabadhay wayba dhihi jirtayba hooyo dhib la-aan bay dhihi jirtay laakiin caruurtu sidai habartu aysa kuwan kale u xasuusan ay tan u xasuusatay hooyo way maqantaa abaayo ciyaalkuna abaayo ka weyn bayba u haystaanba oo ayadaa uga dhaadhicisay markii hore ilay tahay walaashood ilaan dadka ilaahay isku caqli kama dhigin gabadhan maadaama ay la nooshahay ilmaha waxay uga dhigtay walaashood ilay ka weyntaa bas adi gabadhii banaanka bay fadhiday wiilkii waa lasoo wada xilay maamadii way soo miirsatay maamadii sidii ayada u ooyeysa xoogaa way roonaatay wayna aamusta maamadii shib cisbitaalkii maamada laga soo saaray gurigeedii baa la geeyey gurigeedii haddii la geeyey maamadu waa roonaatay xoogaa markii ay cabaar joogtay bay waxay iska soo dhaqaaqday maamadii waxay timi gurigii gabadhii guriga markay timi waxay soo martay marka walaasheedaa la joogtay macnaha walaasheed iyo caruurteedii walaasheedaa la socotay caruurtii iyo walaasheed cisbitaalkaa laga soo saaray waxa la geeyey gurigeedii guriga haddii la geeyey wiilashu waa iska tageen because maamadii caadi bay noqotay awal sonkortaa dhacday sonkortii usoo kacday waa fay waxa ma qabta way sheekaysteen marka inakeen bay tiri waxaan aadaynaa heblaayo gurigii baan aadayaa maba joogi karo way soo kaxaysay jidka intay soo socotay waxay tiri gabadhu inaad adigu dhashay ma oga weli looma sheegin adiga marka waxaa kaaga habboon odaygu inuu u sheego xiise gaaray ku haysaa gabadhu marka maamadii waa timi caruurtiibay waxay ku bilowday dhunkasho caruurteeda yareerka ahayd laabta ku qaado gabadhii waa yaaban tahay islaantii iyadii bay la hadlaysaa iyadii bay fiirfiirinaysaa maanta oo dhan bay iyadii aada u fiirfiirinaysaa marka wax kastana way usoo sheegtay gabadhu wax wara inaysan ahayn islaantu way ogtahay calooshaada xiro markaad tagtid ha ku boodin macnaha isdareensiin ani wax kasta tartiib baan uga dhaadhicin ilaa iyo heerkaas waxoo dhan dee mustaqbal way uga soo sheekaysay islaanta uga soo sheekaysay rag wixii oo dhan bay usoo sheegtay moogtahay saasay u dhacday sheekada halkaas saasaan ku keenay istaji bay ku tiri waayahay caruur dhunkasho iyo waxaa maahaane wax kale islaantu ma gelin dib bay uga soo noqotay islaantii gabadha aabaheed baa yimi aabaheed hadduu yimi waa ku bilowday hooyaan rabaa aabe wuxuu yiri hooyada taariikhdii buu marka uga sheekayay taariikhda noocaasaa dhacday ciyaal baan ahayn buu yiri arrintaasaa dhacday annana waa baqaynay hooyadaana waxay ahayd dadka nooca iyo noocaas keliyaha ku qaata ilmaha kadibna way dhashay kadibna maamadaanaanu gurigeeda soo hordhignay wuxuu iska dhigayaa isaga iyo habaryartu inay og yihiin laakiin
qofka ku dhalay waa heblaayo mana ka dhaadhicinayo meher horeys iyo waxaas waxaaba meher inaysan meher ku dhalan iyo inay meher ka horeysay iyo mid kale maba u sheegin laakiin wuxuu kala hadlay inay caruur ahaayeen in maaragtay ay dhacday arrin maaragtay qarsoodi ah oo reerka laga qarinayo isagiina awoodu ku sheegay uusan lahayn maamaduna awooday ku sheegtay aysan lahayn laakiin ay la ogeyd walaashii waxan sheekada wuxuu ka dhigay bilow ilaa dhammayd inay walaashii la ogeyd inay dhakhtarada iyada u geysay gurigaa inay ku umushay kadibna in halkaa la soo dhigay qaabkaasu ka dhaadhiciyey waana heblaayo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxa islaantaani u daba joogtay ilaa bilow la dhammaan wuxuuna ugu daray weliba kuma oga hooyada hooyadaa inay tahay kumay ogeyn laakiin maalinkii dhoweyd ay dhacaysay oo cusbitaalka la geynayay maalinkaasaa loo sheegay kadibna dartaa bay la dhacday gabadhii qalbi jab labaad gabadhii qalbi jab labaad baa ku dhacay laakiin waxay dareentay say tiri ilmihii ay ku dhegdhegaysay habarta oo dhunkanaysay oo ma garanaysaa iyo si iyada u fiirinaysay gabadhii marka wiilkii qabay baa maamadii loo diray ilaa waxaa la rabaa in caruurtii dhexdoodii kuma boodi karto in bal horta gabadh iyo hooyadeed la isu keenay gabadh iyo hooyadeed waa la isu keenay nunkasho sidii dee dadaan weligood is arag sheeko markaa waxaa la alifay ah nin baa qaba gabadhii waa hooyo awlaad kala leh maanta lama oran karo berigaasay inta garcatay bay saa dhashay oo saa dhashay sheeko waxaa meeshii la dhisay ah inay gabadhaani meherko because odaygeedu wuu og yahay isagaaba shaki ka geli jiray waayadii hore naagtaani amayba maaragtay aysan uur lahayn oo maaragtay oo wixii dumarkane kaba guurayba camal ma fahmaysaa sheeko noocaasu ka shakin jiray oo wuu ogaa inaysan ilmo laga arag oo odaygu waa ka dhadhacsan tahay wiilasha waaweynna weliba way og yihiin hooyadood markay uurka leedahay inaan cidinaba ogeynba marka sheekadii waa la qarxiyey in uu wadaadkaani gabadhaan dhalay gabadhaan inay hooyadeed tan tahay muddada noocaasna la qarinayey sababtuna ay ahayd caruurtan oo yaryar oo tanna aabaheed laga baqaayey iyo hooyadeed ninkaana aabihiis uu ka baqaayay macnaa saasay ninkeeda uga dhaadhicisay ninkeedii saasay u sheegtay wixii oo dhan saasaa loo sheegay wadaadkii islaantan qabay wiilka sodogiis wiilka aabihiis wixii oo dhan sheekadiina waxa weeye asxaabta caruurtii oo yaacaysa marka guriga timi caruurtii oo yaacaysa xaafadii timi dadkii dhiindhiin bay isku noqdeen gurigii wuxuu noqday guri xaafadii ka tirsan sidaa daraaddeed qisadaani waxay ahayd qiso naloo dhiibay maasha allah tabaaraka allah 100% dadka qisada noo dhiibay wiilka iyo gabadha walaalahaya ah oo aanu jecel lahay oo noo dhiibay qisadan 100% qisadan quruxda badan ay noo dhiibeen baan ugu mahad celinaynaa iyo sida ay ugu soo bandhigeen bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad idinkuna aad baa u mahadsantiin ayagana waxaan leenahay ilaa u mahad celisaan weeye oo aad dhahdaan ilaahay khayr hayna siiyo idinka daawashadiina sida u sheer gareynaysan sida aad uga qayb qaadateena inima ilaawi karno abaalkiinana ma gudi karno waxaa ina leenahay qisada labaad oo kasii murugada badan kana sii xanuunka badan la socda waana mahadsantihiin waxayna kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu